asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan waa maalin kale iyo fursad kaloo cusub maantana waxa aynu u kicitimaynaa dhankaas iyo ireland waxaana isla eegi doonaa ireland fellows program for africa scholarship maalmaha soomaalidu aad u hadal haysa asxaab badan ayga codsadeen inaan muuqaal kasoo sameeyo waata haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe share lana sii wadaag asxaabtada haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xirnaydna welcome back isku soo noqosho wanaagsan scholarshipkan sanadadii horena waan ka sameeyey fideoyo haddana waan ku celinayaa si guud baan u sharaxi doonaa cidda xareyn karta marxaladihiisa kala duwan iyo qaabka loo xareyn karo dhammaanba markii aad google ku qorti marka ireland fellows program bagekaas ama linkiga koowaad baa kuusoo baxaya linkiga koowaad markuu kuusoo baxana waxa weeye waxaan imaanaysaa main websiteka oo ireland fellows program uu leeyahay for applicants haddaad sii tegtid waxaad u imaanaysaa markaas programka waxa weye leveladiisa kala duwan ama qaybaha kala duwana dadka ama wadamada ama qaaradaha loogu talagalay ina waxaan si gaar u eegaynaa waa ireland fellows program laana halkan baa wadankeeni ku jiraa soomaaliya oo ay ka mid tahay wadamada fursadaan ka faa'iidaysan karaya sidoo kale intaadan ireland fellow aadan furin waxaa ku arki kartaa koorsooyinka ay kofargaraynayaan suchas waxaa ka mid agriculture health education human rights computer science engineering business and more waxaana inta ka badan ay kofargaraynayaan lagu shubay directory of eligible programs feelka haddaa sii furtid waxaa ka arkaysaa dhammaan koorsooyinka ay ireland fellows program for africa ay u ogoshahay inay ardada usoo xarayaan ay haddii ay helaan loo ogolyahay inay bartaan ama laga bixinayo haddaba waxaynu sii gudagelaynaa ama aynu furaynaa ireland fellows program africa gudihiisa markaan usii galno waa kana websitekan wuxuu kusii sharaxaya ama taabkan wuxuu kusii sharaxayaa scholarshipka iyo ujeedkiisa iyo hadafyadiisa iyo waxyaaba laga leeyahay iyo ireland qorshaheeda SDGs baa aad ugu arkaysaa sustainable development goals oo ka mid a waxyaabaha ajendaha ugu jira waxaa kaloo ka heli karaysaa foreign policyga wadanka ireland iyo scholarshipkan qorshayaashiisa laga leeyahay fogfog iyagana isha marilaana waxay ku sahlayaan inaa hadhow ku xirtid sababaha u xeraynaysid waxa weeye isticmaashid sababaha ujeedkan dadka u taarget ka dhiganaya aadna adiguna iska dhigtid dadka markaasi fursadan ka faa'iidaysan karaya mar kale wadamadii baanu kusoo laabanay iyo kuliyadihii la xareyn karayay eligibilityga markaa u timaatidna waa kana dadkan africa u dhashay ku nool isla sidoo kale africa baa loogu talagalay kana soo jeeda wadamadaas qofku waa inuu haysto 2-3 years substantial work experience waa qasabtan 2 sano ama 3 sano oo khibrad shaqa waa inuu leeyahay bachelor's degree waa inuu leeyahay gradekiisuna ay tahay haddii ilaahay ku ogolaya honors inay levelka saro ay tahay wixii 70 ka sareeya ama 80 ka sareeya haddii scaleka 4 la eegana 3 iyo wixii ka sareeya ay tahay waa inay digriga uu qofkaasi haysto ka dambeysay 2013 oo wixii 2013 ka horeeyay ma qaadanayaan waxa weeye waa inuusan qofku master kala haysan waa inuusan horay mar wax ka badan hal mar uusan u xarayn waa inuu bilaabi karayo august 2025 sanadka soo socota sanad dugsiyeedkaas inuu la qabsan karayo inuu leadership ability soo bandhigo inuu qofkan hogaamin leeyahay oo waxa weeye hal abuur oo dalkiisa iyo dadkiisa wax usoo qabtay inuu 3 program doortay oo uu 3 program choicekiisa Ireland jaacadaha ku yaala ka dhiganayo uu soo gudbiyo inuu fahansan yahay ama Englishka luqadda Englishka uu aad ugu sareeyo oo uu hadhow wadanka maada English looga hadlo jaacadda English noqonayso aysan ku dhib ku noqonayn waxa weeye inuu sanad dugsiyeedka xaadiri karayo waxyaabaha kalena waxa weeye wadamada u khaaska weeye waxa weeye qofkii ka soo jeeda wadamadan gaarka oo ay waliba Soomaaliya ku jirto waa inuu qofkaasi ka shaqeeyo bay yiraahdeen hay'ad NGO ama hay'ado Irish ama hay'ado ka shaqeeya ajendaha Irishku uu markaasi ka caawiyo wadamada ay ka soo jeedaan marka haddii aadan ka shaqeyn hay'ad Irish waan filayo dadka badidiisa inay xaaladoodu saa tahay waa inuu qofku la shaqeeyo hay'ad ama dowlad ama barnaamijyo ka shaqeynaya SDG iyo developmentiga iyo waxyaabaha la xiriira dowladda Ireland ay ka taageerto wadamadaas soo koraya ama wadamadaas la tacaalaya kobaca sidoo kale fiisaha qofka kaliya ayaa laga taageeraya familigiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo laga taageermayo applicationku sidoo kale 3dan waji buu leeyahay 3dan stage preliminary
application detailed iyo interviews buu leeyahay iyagana waan u sharxi doonaa mid mar waxyaabaha la iska rabo waxaa ka mid ah Duolingo English test oo stageka labaad badanaa dadka shortlisted-ka lagu soo daray lagu xujeeyo qofkii IELTS heli karaa iyaduna waa kasii fiican oo stageyada kale waa laga yaabaa laakiin Duolingo dad badan oo ku yimaaday baan arkay oo imtixaanka intay galeen kadibna ay Irish Fellows ku qaadatay waxa weeye intaa markaa maraysid waxaan kula talinaa qofkas inuu intaa hadda carabka soo marsiiyo sida babsiska oo si qoto dheer u akhriyo uu fahmo بعض حاجة I meet all eligibility requirements listed above show documents بعدها هسا show documents مركز تمانية كان هذا فرني أو directives كا كله كلية هاي جاعلها available كعام أو بنان إني عدد حريان مد كان لبان وحوي guidance بوجي حكت scholarship كفا فاصلة كقرناين كان صدق حد نوع document جاي تاينا بحسد أو سوا word document سكان وانا توصل دونا سوا عن مركز بحي واتاي يعني أقول قلنا مركز kan koowaad waa kana programkan qaybtan wuxuu ka sheekeynayaa documentiga ama pdf-ka wuxuu ka sheekeynayaa kuliyadaha xareen karisa jaamacadaha xareen karisa meesha ay ku kala yaalaan kuwa aan lagu ogolayn marka jaamacadaha waxaa loo soo gaabiyey haddii ilaahay ku ogol yahay wadanka dhexdiisa ee meesha ay kaga kala yaalaan iyo kuliyadihiiba oo iyaguna laftirkooda aada muhiim u ah marka isha mari akhri kuliyada ka heshid goorta saas kale uga heshidna iyadana goorta ku sidfatay toos waxay ku geynaysaa international relations oo kale ama development practice da baranaysa oo kale toos bay waxay ku sii geynaysaa jaamacadda bixinaysa galway weeye hal sano weeye kadibna program outline-kiisa iyo waxyaabaha xoog saarayaan buu ku siinayaa sidaasaa marka faylkani uu ku anfacaya inuu ka caawina saddexda kuliyadood laga doonay inaad baratid uu mid kuugu sharxo documenti labaad isagana waa stage 1 guidance notebook wuxuu isaguna sharaxayaa scholarshipka iyo stagediisa kala duwan iyo waxyaabaha laga rabo si bobsiisa baan hadda usoo marnay barnaamijka iyo faa'iidooyinkiisa baa ka mid a waxyaabaha uu sharaxayo haddii ilaahay ku ogol yahay iyo Ireland Fellows waxa uu yahay iyadana horaan isha usoo marinay marka waxyaabaha what we offer waxaa ka mid ah fully funded way waa wax kastoo laga bixinayaa waxa laga bixinayaa academic feegi jaamacadda lacagta ku bixi lahayd fiisii wixii kaaga bixi lahaa medical iyo travel insurance-gii ticketkii ama diyaaradda ee ku imanaysa Ireland ee kaga laabanaysay feegi kaaga baxay deganaanshaha ka ku samaysan lahayd kaarka deganaanshaha waxyaabahan kalena way ka taageeri doonaan bishii 700 euro la siinaya jeeb geliso qofka xoogaa yaroo ah wadanka goorta timaadid ku degtid end of the study period marka waxbarashada dhamaysid laabashadaadii in safar ama bixintaadii laga caawiyo deegaankaaga iyo meeshaad degi lahayd in iyagana lagu diyaariyo laga bixiyo ma garatay waxyaabahana waan eegnay eligibility dadka xareen karo qofku inuu wadamada ka soo jeedo Afrika u dhashay kuna nool yahay ka shaqeeyo leeyahay 2 sano 3 sano khibrada degree haysto grade-kiisu fiican yahay haddii ilaahay ku ogol yahay horey marka badan uusan scholarship-kan u xareen SDG wax la xiriira yahay iyo sustainable development goals fikir fiican clear oo ka haysto Englishka iyo waxa weeye haddii ilaahay ku ogol yahay waxyaabaha uu xareenayo documentigana sidii hadda usoo furay kala usoo furaysan waa akhrin karaysaan stageda marka uu timaadina preliminary application kuwa July koodeeda ilaa wuxuu furan yahay 28 July stage-kan waxa la iska rabo wax u muhiimsan waxa weeye form-kan application form-ka oo hadda inuu tusi doono inaad buuxisid kadibna email ahaan u dirtid sidoo kale waxaad raacinaysaa 3 documenti oo ay ka mid yihiin shahaadadaada passportkaaga iyo transcript-ka Duolingo test ba isaguna xigaya oo aad qaadanaysid goorta stage-kan ka soo gudubtay hadii ilaahay ku idmayo oo stage 2 dadka goortay u gudbaan waa inay Duolingo oo haystaan iyaga kula soo xiriiraya stage 3 waa interview-ga saasay waqti u kala qaadeen hadii ilaahay idmo haddii hore gudaha loogu sii galo stage-ka koowaad baa anaga hadda muhiim noo ah stage-yada kale markii la gaaro baanu ka hadli doonaa documentiyada la iska rabo waa 3 document identification document ama official passport oo kale inaa haysatid undergraduate degree-gaagii iyo final degree academic transcript waa inuu sharxa grade-ka qaabka loo qiyaasay ama loo qiimeeyay points-ka ka heshay maada kasta markaad documentiga aad diraysidna waxaad u samaynaysaa qaabkan oo kale magacaaga passport magacaaga undergraduate degree certificate
magacaaga academic transcript saddexdaa document waa haysataa file format baa ka dhigtay Microsoft Word waxaa ka dhigi kartaa midaan kale oo application formka kuwa kale laakiin waa inay PDF ahaadaan meesha ku diraysidna waa kana wadamada halkaan ku qoran yihiin Soomaaliya maadaama safaarada isku lahayn safaarada Kenya bay ku jirtaa emailkana soo koobiyeenaysaa haddii ilaahay ku ogol yahay hadhowna documentina markii diyaar ku yihiin baad halkaas Gmail ugu diri doontaa waana saddexdan document xaggan ka muuqda iyo formka aad buuxisay formkan hadayna tusi doona haddii ilaahay formka waxyaabaa laga buuxinayo personal information education haddii la ogol yahay luqadii oo haddii aad haysatid IELTS iyo waxaas hadda sii buuxin kartid haddii kalena stage 2 buuxinaysid wadamadan marka waxaa loo kala saaray work experience wadamada aynu ku jirno oo Soomaaliya ku jirto halkan waa inay aragnay in 3 sano laga rabo wadamadan kale laba laga rabaa Ghana iyo Kenya ay ku jiraan laakiin inaga 3 sano laga rabo marka waa inaad soo xaqiijisid soo cadeysid inaad 3 sano work experience lahayd oo aad soo shaqaysay iyo waxyaabaa ka soo shaqaysay si xiriir u leedahay waxaad doonaysid inaad baratid iyo haddii ilaahay ku ogol yahay goolashada ama hadafyada fogfog master programs choice-ka waa inaga hadda soo aragnay meelay jaamacadihii kuliyadihii wixii dhan ku jiraan waa inaad saddex halka ka soo qaadatid ka soo dooratid oo aad formka ku dartid iyo sababta doonaysid ama in lagu tixgeliyo lagu siiyo scholarship-ka isagana waa in saddex afar su'aalood aad ka jawaabtid iyagana waa isla arki doonaa kadibna stage 2 baa gudbaysa marka inaan stage 2 u gudbin maadaama application-ka hadda deadline-kiisu laatay 8 July uu yahay stage 1 yahay bal aynu stage 1 formkeeda isla eegna kadibna aynu dirno formka markaa furtisaan u ekaanaya anigu waan buuxbuuxiyey meelahaan oo dhan waa select baan saaray isku talaaba saaray ama saxba saari kartaa dadkii ku dhow su'aalahana ka wada jawaabaysaa official document ma haysataa undergraduate ma haysataa transcript ma haysataa haabaan saddexda waa haysanaa meeshan waa buuxiyey Soomaaliya u dhashay Soomaaliya deganahay 3 sano khibrad shaqo baan leeyahay waxa weeye kuliyadeedina la xiriirtaa grade-kaygu intaa weeye degree waan haystaa waxaan yareeyo baa wada buuxbuuxinaysaa Ireland Fellows mar ka badan ma aanan xarayn waan fahansanahay in kaliya ani la taageerayo ee family-gayga la taageerin kadib waa personal information magacaaga single waxa tahay daadaada haddii la ku ogol yahay inaad curiyaan tahay waxyaabaha taageero u baahan tahay maya waxyaabahaas yes no baraha qaybtan kaliya taaban for embassy use only haday ku qoran tahay iyaga weeye adigu shaqo kuma lehid adigu waxyaabahan kale baad buuxinaysaa kadib education baa way marnaa jaamacadaha soo dhigatay kuliyada soo dhigatay markaan public policy baa RBS University sanadkan soo dhigtay grade-kan ka haystay GPA waxa weeye grade-kaaga celceliska inta ka heshay oo kale scale-kana ma waxa weeye sanadka 4 sano dhan ee degree-ga inta ka heshay kale marka dabcan transcript-yada badanaa way ku qoran tahay haddii kale Google-ka inta gashid baad waxaad ka akhrin kartaa sida loo kalkuleet gareeyo haddii 100 ay ku qoran tahay waxaad u bedeli kartaa grade-ka ay badanaa regal beed ku isticmaalaan ee out of 4 ka ah isagana website badan oo ku bedelaya heli karaysa marka taasna xagga ku sii qor haddii ay jiraan jaamacad ka badanna iyadana saasaad u qori kartaa academic qualifications kala hadda leedahay oo aan ahayn haddii ilaahay ku ogol yahay jaamacad caadi oo koorsooyin gaagaaban iyo dibloomoyin iyo waxyaabo yar online ka barateen ay jiraan iyagana saasoo kale halkaan ku buuxin karaysaa meesha ka dhigatay waqtiga dhigatay iyo grade-ka ka haystay bagelinaysaa English waa escape gareynana laana stage-kan muhiim maaha laakiin insha Allah stage soo socda muhiim buu noqon doonaa marka qofkii raba in waqti iska sii faa'iideysto dhalinyaro ay ku dhacday baan arkay oo intay la soo daaheen waqti uu ka dhacay ama intay markii koowaad isku dayeen points aan sare ka keensan marka hadda u sii diyaar garow oo isku sii diyaaro oo Duolingo iyo IELTS sababkii ku fudud oo gali karaysid gal marka isaga saasan kaga gudbaynaa work experience baa weemarna waa inaagna 3 sano soo shaqeynay institution-ka oo soo shaqaysay waqtiga ka shaqaysay teetalada ka qabatay wixii dhan ba halkaan ku buuxbuuxinaysa oo very wax way self explanatory way uma baahna sharaxaad dheeri haddii meel ka badan aad shaqaysay oo shaqooyin kale badan aad soo haysay sanado badan iyagana xagana ku tixi kartaa meel kasta inta joogtay xagana waxa weeye real roleska leadership positionada soo qabatay hogaamiyeed iyo waxa soo qabatay team leader iyo community organizer iyo inaan youth activist iyo waxaasan ahaa iyo urur yaro waxa weeye dhalinyarada gacan qabto iyo qaxootiga taageerada waxyaabahaas oo dhan ba ku qori karaysaa iyo soo buuxin karaysaa stage-kan number 4 waa master program choices in Ireland waa saddex jaamacadood aad ka dalbanayso wadankan Ireland University of Galway master public policy baan dhigtay koorsada koodkeeda jaamacada ka helaysa marka jaamacadihiina aad dareynaysid kuliyadaha aad dareynaysan jaamacadaha bixiya website-kooda galaysa martada koodkeeda ka soo qaadanaysa magaca maadada ka soo qaadanaysa copy paste baa dhahaysa oo sidoo kale xusuusnow sida u kala horeeyaan bay kugu kala muhiimsan yihiin marka jaamacada aad ku dareynaysid magaalada aad ku dareynaysid iyo kuliyada aad ku dareynaysid markasta ku ka dhigo kadib midda labaad ku xigta midda saddexaad kugu least important ahana u dambaysa ka dhig
waa tahay tan embasiga u dhaafaysaa su-aalihii waa kuwan essayga somehow waa su-aale essay la oran karo oo waxay doonayaan inay fahmaan maxaa dadka kaa sooca maxaa aanu kuu siina fursadan maxay tahay baahidaadu marka meeshan waxaa haysataa fursad aad ku sharaxaysid haddii ilaahay kuu ogol yahay sababta ay tahay inay scholarshipkan adiga kuu siiyaan uga mudan tahay boqolaalka qof soo xaraynaya marka meeshan waa meena u fariisatid madaxa tuujisid oo aad essay kala kacsan samaysid oo si fiican ula xiriiray isugu xiraya waxaa baranaysay waxaa kasoo shaqaysay waxaa rabtid inaad baratid qorshayaashaada mustaqbalka marka su-aasha koowaad oo lagu weydiinayo waxa weeye how would the specific programs of study in Ireland which you have chosen assist you in your career aspirations yani mustaqbalkaaga iyo shaqooyinkaaga sidee buu kaaga caawinaya barnaamijyada aad dooratay barnaamijka aad dooratay Ireland sidee buu kaaga caawinayaa inaad wadankaagu gaaro goalska ama hadafyada SDG Sustainable Development Goals se kaaga caawinaya wadankaaga uga caawinaya iyagana waa sharaxaada u samayn karaysaa inaad eegto SDG goalska wadankeena markaas aad tiraahdo waxaas buu iga caawinaya waxbarashadaan su-aasha labaadna waxa weeye sidee bay ugu contribute garanaysaa ama waxa ugu daraysaa scholarshipka in haddii lagu siiyo xiriirka ka dhexeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Ireland iyadana 150 eray ka qoraysaa marka 150 yiina dhaafin yaan la dhaafin mid kasta 150 eray ha laga dhigo oo sidaa kusoo kooba tusaalena saano kale u qori karaysaa tusaale kalena insha Allah waxaan soo dhigi doonaa groupka Soomaalisco ee Telegramka aan ku leenahay waa tahay gunti gabagabadii waa declaration inaad tiraahdid anaa waxaan qoray waan ogahay inaan wax saxa qoray inaad tig saartid haddii ilaahay kuu goliyo meelahan kale tig saartid inaad xaqiijisid magacaaga iyo taariikhda aad buuxisay sidoo kale qortid iyo inaad social mediaha baan ka soo ogaaday oo YouTube iyo meelaha isaga qortid laakiin inta u muhiimsan waa inta aan hadda carabka kusoo dhufanay faylkan iyo shahaadadaada iyo haddii ilaahay kuu ogoliyaa transcriptigaaga iyo baasaboorkaaga baa gmail imanaysaa gmail baa ku diraysaa emailka u diraysidna dee waanu isla soo aragnay xaggaanaan ku aragnay emailka safaaradda Kenya baa ku diraysaa dokumentiyada ha ilaawin inaad sidii aanu u sheegnay aad saa ugu magac dhowdid oo aad sidaan u qortid magacaaga oo full name ah iyo baasaboor magacaaga undergraduate magacaaga academic transcript formka kale oo application formkana saasoo kale inaad isagana document ka dhigta ama PDF kuwaana PDF ku ahaadaan stage koowaad intaasu kaaga egyahay insha Allah intiina stageka labaad usoo gudba waa ila soo socodsiinaysan ama markii jawaabuhu soo baxaan September meelahaas baan muuqaal labaad ka samayn doonaa sidoo kale alxamdulillah yar dhalinyaraayo Soomaaliyeed baa kamid ah dhalinyaradii scholarshipkan sanadadii la soo dhaafay helay oo waliba markii uu muuqaalkayga daawaday uu xareeyay uu ku guuleystay isaga iyo dhalinyaro kale aan garanayo iyaguna maasha Allah aad u dadaalay baa jira oo scholarshipkan ku guuleystay waxaan isku dayaynaa isbuuca soo socda ama kan xiga aan dhammaantood soo fariisiyo khibradooda ay idinla wadaagaan iyo waxa markaas u shaqeeyay marka channelka ku xirnaada subscribe dhaha gambaleelka furta lana sii wadaaga walaalaha isleedin fursadana way ka faa'iideysan karayaan waa tahay idinkana gulbaan in rajaynaya ila muuqaalkan kan xiga waa Yuusuf Shire oo idin leh isma dhaafin assalaamu calaykum